Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waad mahadsantiin. Waxaan qaadanaynaa proper nouns, magacyo qaas ah, magacyo gooni ah. First waan qeexaynaa. Proper nouns are names for particular people, places or things. They always begin with a capital letter. Proper nouns waxaa la lahaa waa magacyada dad gooni ah, goobo gooni ah iyo shayaal gooni ah. Mar walibana waxay ka bilowdaan capital letter, xarf weyn ka bilowdaan. Tusaale waxaa ka mid ah dadkan halkan ku yaalo magacyadooda: Omar, Pithvin, Santa Claus iyo Lisa. waa adigoo dhahay micnaha Cabdiraxmaan, Axmed, Aadan, Xasan iyo maxaan ku yiraahdaa Gele. waa some examples of names of the people you can understand. Here are some more names of people. Magacyo badan oo dad ay lahaan karaan amaba ay leeyihiin ayaa halka ku yaalo: Alibaba, Florence Nightingale, Derek Jeter, Pauline, Johnny Depp, Patrick, Harry Potter, Pinocchio, Robin Hood. waa some names oo dad ay leeyihiin. waa waxay ka dhigan tahay iyadoo la yidhi micnaha dheere, kusow, like that. Your own name and the names of your friends are proper nouns too. hadda waxaa ogaanaysa magaca adigaa leedahay iyo saaxiibadaada magacyadooda ayaga laftirkooda waa proper, waxaa waay names ama proper nouns waay. tusaale waxaa ka mid ah Kemli ayaa ka mid ah, waa adigoo macnaha kaaga qoray camal leh waay. Did you know, ma ogtahay marka in magacaaga uu proper yahay? Soomaad arkeen dadka qaarkood magacyadooda waxay qorayaan ilaa dhammaadka micnaha 3 magac oo small ka wada bilaabanayaan. waa wareer kale, waxay u baahan tahay marka in la xalliyo. waayahay. The names of countries and their people are also proper nouns. And dadka magacyadooda iyo wadamadoodaba waxaa la isku yiraahdaa proper nouns. waa magacyo qaas ah. American waa ninkan, waa nin Maraykan ah, laakiin wadanka wuxuu ahaa America. marka isku mid waay. haddaa America qorayso, American haddaa qorayso, unity capital letter inaa ka bilowdo, because waa proper noun waay. Egyptian waa nin reer Masar ama Masaari ah. Indian, Hindi ah. Italian, Talyaani ah. nin Thailand wadanka la yiraahdo u dhashay ama qof u dhashay. Japanese, Japan ah. Korean, Korean ah. Malay, Malaysian ah. Filipino, Philippine ah. Pakistani, Pakistan ah. malaa waxaa jiri jiray micnaha khamiis half ah oo dhinacyada ka duleelo Pakistani la jiray. I don't know, ayaantan wax qaata ma arkin. marka Pakistani la jiray, marka dadka reer Pakistan ayaa aad u qaata runtii, waana wax jir waay. So halkan waxay muujinaysaa a country iyo people, wadan iyo dadkiisa siday isu leeyihiin iyo markay ay wada capital laga wada bilaabo oo proper nouns ay yihiin. America, Americans, waa Maraykan iyo reer Maraykan. Egypt, Egyptians. India, Indians. Italy, Italians. Japan, the Japanese. Korea, Koreans. Malaysia, Malaysians. Pakistan, Pakistanis. France, the French. Thailand, Thais. Okay, so wadamo magacyadooda micnaha uma baahna in la fasiro, ogow taas. waayahay. The names of towns, cities, buildings and landmarks are proper nouns. magacyada magaalooyinka iyo caasimadaha iyo dhismooyinka waaweyn iyo astaamaha dhulka uu leeyahay waa proper nouns waay. Hong Kong, Egypt, waa Hong Kong iyo Egypt oo countries ah. The Great Wall of China, Shiinaha darbigii weynaa oo dhisay. The Statue of Liberty, taalada maxaan ku yiraahdaa xorriyadda. Tokyo, Sydney, Bangkok, New Delhi, London, Denver, New York, Central Park, Paris, the Eiffel Tower, Beijing, a Big Ben, the Grand Canyon, the Leaning Tower of Pisa, a Brooklyn Bridge,
Pikes Peak. magaalooyin way ku jiraan, gooban way ku jiraan. They're very more. intaas waxaa la yidhahda markaasi waa proper nouns, waa magacyo qaas ah. The days of the week and the months of the year are proper nouns. maalmaha toddobaadka iyo bilaha sanadka ayagana waa proper nouns. weliba ogow kabitaala laga bilaabaya, aday ku taala haddii si kale aad u qorto. haddeer dhegeyso oo baro. Days waa Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. marka waa wada capital laga bilaabay, la soco. waxayna ka mid yihiin proper nounska. sidoo kale bilooyinka sanadka oo 12 bilood la yaqaano sida January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. ayagana waxaa laga wada bilaabay sidaad ujeedo capital letters, waana proper nouns. waxa uu ku leeyahay did you know, ma og tahay January is the first month of the year. January bisha koowaad ee sanadka inay tahay? waan ognahay. Sunday is the first day of the week? maya Sunday ma noo ah, anagu Saturday noo ah. A table that shows the months, weeks and days waay markaasi ayaa halkaa ku sawiran. waa tableka wuxuu ka wadaa miis ma aha, shaxan sawir qaab buu ka wadaa, iska ilaali wagaag. halka wuxuu leeyahay the names of mountains, seas, rivers and lakes are proper nouns. magacyada buuraha, badaha, webiyada iyo weliba harooyinka ayaa waxaa la yidhahdaa proper nouns waa eegana. okay, so the Thames dabcan webi waaye kan. Mount Everest buuru waaye. Niagara Falls biyo dhac waaye ama meel biyaha kasoo daadegaan. Lake Michigan ayadu waa lake caadi ah. The Alps buuru waaye. The Dead Sea bad waaye. Mount Fuji buuru waaye. The Himalayas buuro. The Pacific Ocean bad waaye. The Yellow River webi waaye. You often use that before names of ocean, rivers, seas and ranges of mountains. wuxuu leeyahay badanaa dea u isticmaal ama dea u isticmaalaysa magacyada badaha iyo maxaan ku dhaha webiyada iyo buuraha meelahaas marka laga hadla. Mount means mountain laga wadaa. Mount waa buur le waaye macnaha ayadii le xoogaa laga reebay. It is often used in the names of mountains. badanaa waxaa loo isticmaalaa magacyada buuraha. For example, Mount Everest, Mount St Helens waa buurahaasi marka laga hadlayo mountain isticmaalan. The written short form for mount is MT. Mount haddii lasoo gaabay MT noqda iska ilaali. For example, tusaale MT Everest iyo MT Fuji waa Mount Everest and Mount Fuji laga wadaa. waayahay. The names of festivals, some special events and holidays are proper nouns too. magacyada dabaaldegyada iyo maxaan ku dhahay dhacdooyinka ama xafladaha gaarka iyo fasaxyada ayaguna waxaa waaye waa proper nouns waaye iska ilaali. Valentine's Day, Mother's Day, Halloween, New Year's Day, Christmas and Memorial Day, Labor Day, Independence Day, Mother's Day, April Fool's Day, Thanksgiving Day, St. Patrick's Day. waa dee maalmaha maxaan ku idhahdaa maalinta hooyada, maalinta aabbaha, maalinta jeceelka, maalinta farxalka, maalinta aidiska maalinta maxaan ku dhahaa qabeyska miya, waxaas oo dhan micnaha waa maalmo loo sameeyey magacyo kadibna loo bixiyey lagu tilmaamay inay yihiin proper nouns inay yihiin. waayahay waxaan marka halkan ku ekeysiinaynaa qaybta 10 exercise-kan u gelayna markaa. halka wuxuu ku leeyahay underline the proper nouns in the following sentences. war waxaa hoos ka xariiqda magacyaalka magacyaal mahaya sorry magaca qaaska ah ee ku jira jumladahan soo socdo. wuxuu ku leeyahay kow waxa ay markaan July is often the hottest month in summer. July wuxuu leeyahay badanaa waa bisha ugu kulul xagaayiga. really Somali markii la joogo July waa bisha ugu macaan oo qabow iyo raaxada badan waaye. waayahay laakiin some countries weatherka wadamadu uu kala duwan yahay taas la soco. so hadda July waaye proper noun warkii oo kooban. One day Alibaba saw the thief is hiding in a cave. maalin baa wuxuu arkay Alibaba oo wadada iska marayo 40 tuug waaye oo isku qarinayo
meel good ah. So Alibaba is a proper noun. You have to know that. Sean and Ashley are going to the beach for a swim. labada qof waxay u socdaan badda say usoo dabaaladaan waa labadooda waay marka proper nounka Sean and Ashley labadan waay. Master Lee is reading a book. Master Lee book buu aqrinayaa. Master Lee ayaa waxaa markaasi proper noun. I'm your fairy grandmother, said the old woman to Cinderella. Ani waxaan ahay ayeydaada oo maxaan ku yiraahdaa ayeeyada waa kala duwan tahay tan waa fairy grandmother ayeeyo cirfiid waay ayeeyo daran waay marka ayay leedahay markaasi sorry okay something went wrong waaya marka tan waxaa waaye Cinderella waay. Uncle Mike is a lawyer. Uncle Mike abti Mike waaye isaga waa lawyer waaye ama mase qareen waaye ama abukaat waaye marka Mike ayaa waxaa proper noun. Next Tuesday is a public holiday. Talaada soo socota fasax waaye tan soo socota fasax waaye laftirkeeda moogtahay ciida soo gasha soo gal rabtay waayahay Tuesday ayaa waxay tahay marka the proper noun. Many children enjoyed the movie Lion King. caruur badan way ku raaxaysteen filimkii ahaa Lion King marka Lion King waa proper noun iska ilaali. halka hoose wuxuu ku leeyahay look at the words in the box which one is a common nouns and which are proper nouns. wuxuu ku leeyahay magacyadan qaarkood oo boxkan ku jiro qaarkood waa proper nouns oo aan maanta hadda aan qaadanayno iyo common nouns oo aan horey usoo qaadanay. haddii aadan common noun aadan arkin go back to my videos muuqaalada dib ugu laabo soo raadi common noun soo dhammayso then proper noun markaasuu imow. common noun qaar waaye qaarna waxa waaye waa proper nouns waaye. warka waa aad buu u sahlan yahay qish baan ku siinaya. haddii uu ka bilowdo capital waxaad ku dejinaysa qaybta properka. haddii uu ka bilowdo small waxaad siinaysa dhanka iyo commonka. si kale haddii la yiraahdo waa la kala kasi kara sababtoo magacyo iyo sheeyaal iska caadiya things iska caadiya way kala duwan yihiin. marka inta waxaan aruurinaya marka hore oo capitalka ah. Lisa capital waay. January capital. President Hotel capital. White Sand Beach capital. Dr. Wang capital. United Bank capital. intaas waa proper nouns marka halka dhinacaan koonaha midig ayaa wada saaraysaa. okay a doctor bank beach month hotel iyo girl intaasna waa small ay ka wada bilowdeen waana common nouns. aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. intaan kulmi doonaa casharkan kan xigo waxaan idinkaga tegaya sidaas nabadgelyo.